qaybtii shanaad ee sheekadii mataan ciideed. dhegaystayaal, muddo hadday mataan qoortu kor ugu taagnaydoo falalkiisii silloonaa iyo magaciisiiba bari iyo bogox lagaga haasaaway ayuu maalintii dambe geelooda dhexdiisa kadaloob u fadhiistay. hami baa ku soo kordhaye dhulkii buu jifeeyey. hal iyo faras baxdow ah ayaa mooladiisii ka batay. barbaar turuqya waaweyn oo wada okobonna garabkiisa ayuu ku arkay. kolkaas buu istaawiyey rag inuu wax dheer yahay. waxay la ahaatay bili adduun inuu u soo maray. maxaa ka maqan ayuu isweydiiyey. allaylehe, doobni baad ku raagtay lagana roone waa ruux dumar ah oo aad alkumato degdegna aad ula aqal gasho, ayuu naftiisii ugu jawaabay. hawo guur baa ku soo korodhay oo talow teebuu gaataa, dadtayuu kala xididaa. tashi buu bilaabay oo duqow iyo abwaanno uma bayriine da'yartii ay isku garaha ahaayeen ayuu u leexday. wuxuu goostay gabadha uu guursan doonaa milge iyo qurux gayiga ciideed inanta lagu kuuniyo inay noqoto. dhaban dumar loogu xisaa ha ka muuqdo, magaceedu mid ay safruhu ku haasaawaan ha ahaado, ha ku aroorto qoys xoog lehoo awood iyo wardheeriba loo daayey. meel alla meeshii dab ka bidhaamayeyba dhallinyaro ayuu u diray. ciid oo idil ayay cagta soo mariyeen, iyaga oo indhaindhaynaya inantii mataan ciideed u qalmi lahayd ee uu raalliga ka noqon lahaa. ina hebeshii loo soo sheego wax uu ka maagto oo uu wuxuun ku dhaliilaba, ugu dambaystii ayaa barbaar geenye qodban ku joogaa uu geedkii uu fadhiyey kaga degay. wadahadal gaaban kadib waxaa la midhacsaday mataan oo ilka caddaynaya oo aad moodo safar dagani inuu u muuqday. waxaa la arkay mataan oo muusoonaya, mataan oo boodboodaya siduu yahay canug aan weynaanoo wax ka lumay cabbaar kadib ciidda ka dhexelay. allaylehe, gabadha laguu sheegay way kuu qalantaa. reer la yaqaan way ka dhalatay. bilic aan dumar loogu wada deeqinna waa loogu deeqay laguna galladay. qorshe iyo quluud wanaag haween loogu xisho oo dhan baa lagu tilmaamay. oo waa tuma, waa salaada yuusuf. waxay eedda rumaad u tahay nimankii walaalaha ahaa ee gebyi ogaa weerar bulxan yuusuf iyo qamaan bulxan yuusuf. waa inan kibir iyo sagaalka nooc ee suuruhu u kala baxaba isku darsatay. waa inan rag oo idil cagaha isugu dhufatay. hebel bay diiday, hebel kalena aabbahay buu uga yahay waa tii tiriye malaha adiga ayuunbay ku sugaysay. qoodhay iyo xeraday maanta ayaa guur kuu eg yahay. isbandhigoo doobnimo lama ammaanine reer yeelo. mataan baa sidaa naftiisa kula showray, go'aankaana ku adkeeyey. sideeda bannaanse guur waa doonis ama waa la bixide labada tabteebuu raacaa. ileen xodxodo iyo is-afgarasho ayaa ka horraysa. gabadhana hadal idiinma horraynine la bixid iyada haba soo qaadin. midda kale, tabta la bixidda waxa u irkada nin cayra oo xoolo adduun ku yar yihiin, yarad badan in la weydiistana ka cararayee maxaa mataan uga dana. inuu doono ayay tala kaga dhammaatay. raggiisii kuwii uu ugu kalsoonaa ayuu urursaday. dabadeedna qoyskii ay salaada ka dhalatay ayuu fardihii u hensaystay. isla markiiba wuu u dadab galay. la isma haybsan oo waa la isyaqaan. waa xigta isku degaanahoo isku ceel iyo carshin ah. korkaas buu ma leexleexanine inuu salaado doonaayo reerkii diirka uga qaaday. gabdhaha oo la isu diidaa soomaalida xeer uma ahayne waa lala xaajooday. dabadeedna waa loo carab laalaadiyey. geel iyo fardo iyo yarad imisaad bixinaysaa doodu kama jooginoo lagu murmimayn. maxaa yeelay waxaa la ogaa mataan inuu yahay wiil hoog ammaan jecel oo diyaar u ah rag inuu ka fooro, xididkana wax sheeka reeba uu guddoonsiin doono. hawraarsan baa codsigiisii lagaga jawaabay. salaadana waa la siiyey. yarad mayro geel iyo gammaanba leh oo faraskiisa fayd la baxay uu ku jiro ayuu goor barqaa soo hortubay. faarax afey, cali dhan iyo nuurjiir maraweyntii salaado ay xigtada ahaayeen ayuu tacabkaa xeryaha ugu shubay. iyaguna wixii xidid laga filan jiray oo qalqaalo ah ayay ku dhaqaaqeen. raggu ha wada hadlo, gabar ha laysa siiyo, yaradna ha la kala qaatee. talow salaado arrintu halkee bay ka taagnayd? maxaa madaxeeda ku wareegayey? inuu mataan soo doonay oo hablo oo idil iyada ka doortay magallad bay u qaadatay mase laba calooliyo baa ku dhacay. waxay istidhi waxa geyiga ciideed rag ku dhaqan, maxaa talow ninkan kaaga soo soocay?
su-aashaas ayaan aniguna jawaabteeda toyday waxaana ku tiri kuteed igu soo gaadhay dadabgalkii horeba inay gabadhu doonistii mataan ka maagtay dumar iyo rag mid ay kula sheekaysatayba waxay ka ergeysay ninkaas habaar mooye aan dhankiisa waana duca loola jeesan in la weydaarsho malahayga waxay ka cabsi qabtay carruurta ay dhali doonto habaarka mataan ku larani inuu u gudbo inuu fac ka hari waayo hase ka maagto hana ka mashiiqsatee marna diidmo salaado uma bannaanayn wax walba oo rag ku heshiiyey waxay ahaan jirtay inay dumarku raacaanoo rabbi iyo ragba wixii ay ugu taliyaan kama hor imaan jirin inkastoo raggii hore qaarkood ay yaradka iyo aayaha hablahooda ay kolkol yaradka u xeelan jireen haddana run ma ahayn waalidka iyo jifadu halka ay gabadhoodu ku socoto inaanay u meeladayi jirin salaado iyada oo taamaanka ku haysa ayay guurkii mataan hawraarsan tiri ha yeeshee gugii gabadha inuu dhista laga sugaayey ayuu imaan waayey fariinna ma soo dirin xagaagii xigayna lama arag dayrtii haddii la gaadhayna ma soo joogsan waxaase yaab loo wada go'ay gugii labaad kolkuu da'ay welina aan wax wara xaggiisii laga helin muxuu talow mataan maagan yahay ayay dadkii yaqiini ishaybiyeen waayeel iyo dhallinyaro rag iyo dumar iyada oo wixii uu damacsanaa ay cidina suurayn la'dahay ayuu maalintii dambe tix gabay ah soo dhiibay waxay ahayd tix ay ka muuqato inaanu inantaba dan sidaas ah ka lahayn kalgacal sii ridanna aanu u haynin bil soonqaad iyada oo lagu jiro ayaa dhallinyaradii salaado u timid oo waxay u sheegeen gebagabadii tixdaasoo ahayd soonkan iyo soonkiis haddaad socotaday weydo iga samir salaadooy ilaah nimuu ku siiyaaba waxa la sugaba gugii saddexaad ayuu isa soo dhigay isaga oo haba yaraatee aan wax cudurdaar ah xididkii iyo gabadhii toona u sheegin dabadeedna maxaa ku maqnayd intaas oogu iyada oo aan la weydiin ayaa aqal aan aqalla u ekayn loo dhisay kashkaash iyo darma ladanoo raaxa loogu gam'o ayaa loogu goglay qumbayaal subag ah iyo tirbado oodkaca ayaa gasada loo dhigay si gaajo iyo diyahaalba ay agagaarka uga fogaadaan fardaha ayaa lagu dabaaldegay oo laga dulgeeraaray ammaantii gabadha ayaa lagu dheeraaday dhallinyarada ayaa sacabka iyo jiibka isla heshay salaadana goor fiid ah oo dayaxu 9 iyo 11 u dhaxeeyo ayaa aqalkii loo asteeyey mataan loogu soo hooyey aroos gobeed buu ahaaye rag allow ninkii sidaas loogu maamuusay muxuu kaga abaalguday amankaag iyo afkala qaadba waa dambeeyaane